diiwaangelinta codbixiyayaasha ee waqtigan ka socota gobolka Hawd ayuu kormeer maanta ku soo maray badhsaabka gobolka Hawd Ibrahim Cali Xasan dhammaan goobaha ku tirsan gobolkaasi Hawd ay ka socoto diiwaangelintu kormeerkan waxa ku welinaya taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi Hawd gaashaanle dhexe Axmed Cabdullaahi oo ka warbixiyay xaaladda amni ee deegaankan xagga nabadgelyada ilaahay baa mahadle kolley madaxda bilayska iyo bilayska shaqada gacanta ku haya oo taliyaha ciidanka bilayska ugu horeeyo hawsha waxay ka qaateen qayb lixaad leh gaadhin soo ma jiraan laakiin reserverkaad moodaa inuu yar culus yahay meelaha qaar kood dadku cabanayaan Ibrahim Cali Xasan gudoomiyaha gobolka Hawd oo shir jaraa'id ku qabtay gabagabadii kormeerka gudaha magaalada Balligubadle ayaa ku tilmaamay inay jirto aqoon la'aan ka muuqato komishanka doorashooyinka qaranka shirkan jaraa'id maanta aanu qabanay wuxuu daaran yahay inaanu qiimeyn sameeyno hawshii diiwaangelinta ee socotay runtii guud ahaan gobolkan ka socotay gobolka Hawd marka runtii la eego xilliga la qabtay diiwaangelinta ay komishanku qabteen iyo waqtiga waliba yar ee kooban ee 7 casho ay u qabteen iyo xilliga adag oo ay qabteen iyo waqtiga kooban waxaad moodaa inay khibrad la'aan ay tilmaamayso khibrad la'aan inay ka timi bay ay tilmaamaysaa waxa kale oo iyana weheliya goobaha majority meesha ay dadku ku bataan ba safarku culays buu keenayaa oo aad bay u jilicsan ma quality-giisa xun ma wax kala ka si ah macna goob kasta oo culays badan fuulo oo dad badan iska diiwaan gelinayaan safarkii culays badan buu keenayaa far badan buu keenayaa meelaha qaar koodna jarneetaradii baa ka yar jilicsan meelaha qaar kombiyuutarada sawirradii kameradooda ay ka yar xun yihiin marka runtii hawlaha badankooda bilaysku way wataa maamul ahaan kormeerkii bilayska iyo shaqadooda aad buu fiicantay laakiin waxaad moodaa guud ahaan shaqada dabacsanaan xaqii tiimamka dhalinyarada ah ee komishanka u shaqeynaya hawsha gacanta ku hayaan shaqadoodina way ka soo baxeen laakiin waxaad moodaa xagga farsamada aad u jilicsan marka komishanka war loo soo sheegay ee report-ka la bixiyay meel in ama safarku culus yahay ama dhibaato ka jirtana jawaabtay bixinayaan aad bay dib ugu dhacaysaa marka waqtigii 7 cashana dadkii bay siiyeen dadkina waa jilaal waqti aad u adag oo dadkii baahan yihiin waqtigii way yareeyeen shaqadooduna ma runtii sidii la doonayay ma aha waliba xagga qalabka iyo technicalka aad bay hooseysaa kormeerku aad buu hooseeyaa waxaan aad u dhaliilayaa komishanka shaqadooda runtii iyagoo waqti adag ku beegay oo aan ama khibrad la'aan bay ka timi la way ogaayeen waqtigan in wadanka oo dhan abaar ku jirto dadku aad u tabcaansan yahay runtii mala rag magaalo iska jooga bay ahaayeen aan qiimo weyn khibrad weyn u lahayn deegaanada wadanku ka kooban yahay marka runtii waxaan aad uga cabanaynaa waqtiga adag ee lagu soo beegay waqtiga waliba yar ee 7 casho ah qalabkan loo isticmaalayo iyo wixii aad moodo in quality-gooda hooseeyo waayo waxa weeye meel kasta wax markaad kormeerto 7 meelood marka tagto 3 meelood dadku ku badan yahay safarku waa culus yahay ama kameradii kombiyuutarka wax ka yar xun ama generator-ka baa xun marka runtii technical ahaan shaqadu waxaad moodaa inay hooseyso kormeerkeedu hooseeyo waxa weeye khibradeedu hooseyso ayaad runtii moodaa oo hawsha komishanka waxa weeye shaqaalaha iyo dhalinyarada hawsha fulinaysa aad baan ugu mahad celinayaa way taagan yihiin habeen iyo maalin way shaqeynayaan bilayska iyo ciidanka xagga dawladda iyo xukuumadda shaqadooda aad bay uga soo baxeen laakiin dhaliilaha jira waa dhaliilo iyagu hay'adaha ay ka kareysteen haday doonaan ee shaqada haday xataa leedahay shaqada iyaga waa waxa dhaliilay jirta wax xagooda marka runtii anagu gobol ahaan marka deegaanka la eego qiimeynta xaggan isdiiwaangelinta waxaad moodaa waqtiga lagu soo beegay inay dhibaato badan oo 50% dadkii aan isdiiwaangelin karayn waqtiga oo kooban oo aan waliba waqtigana la koobo 7 casho laga dhigay inuu dhibaato labaad sii yahay oo waxa weeye dadkii reer miyiga ah meel laga keenay sidaas oo haddana culays kalena way haystaan culays kalena dhinacyo kale ayay naga haystaan oo maraan ka dabaalanayno wax nooga hagaayeen mar ay culayska dib noogu soo noqonayo iyo culays kalena way haystaan marka runtii anagu waxa baanu jeclaan lahayn in qiimeyn hay'adaha qaran ee ay khusaysaa hadaynu doonayno dadkeenu diiwaangelin sax ah inuu galo doorasho sax ah ka dambayso hadhow lagu qaado in arrinka qiimeyn laga sameeyo hay'adaha ay khusayso oo dhan ay qiimeyn ku sameeyaan oo aanay diiwaangelintu sida aanay inugu dhaafinaad moodo dabaysha yar ee saa u soconaysa waqtiga adag ku soconaysa dadkeena aan isdiiwaangelinayn waxaana u muuqanaysaa anaga 70% inaan gobolku isdiiwaangelin karayninba 70% dadka gobolka degani waqtiga yar ee kooban 7 casho loo qabtay iyo xilliga adag ee lagu jiro iyo shaqada komishanka oo aad moodo inay hooseyso saddexdaaba marka la eego waxaad moodaa 70% gobolka inaan isdiiwaangelin karayn baad moodaa
waqtigana uu iminka sii dhamaanayo dee dhowr 2 casho gaarsan yihiin ayaad moodaa marka runtii waxaanu aad u jecelahay in qiimeyn arrinka lagu sameeyo oo baahiyaha dadweynaha ka soo yeedhayay kuwa xukuumadda iyo xubnaha shaqeynaya ka soo wariyay hawlwadeennada waxay keenayaan in la dhageysto si dadku isu diiwaan geliyaan waanay noqon igagee shaqada igagee hawshii igagee uu dhaafi waqtigii ma dhamaa saacadaan eegaya aad iyo aad baan idin salaamaya